fanaanada weyn ee caanka ahayd ee codka dahabiga ilaahay ku maneystay iyo jooga iyo jamaalka Qadra Daahir Cige waxa ay ku dhalatay xaafadda Dumbuluq ee magaalada Hargeysa. Qadra waxa ay dhalatay sanadkii 1957. Qadra fanka waxa ay soo bilowday iyadoo iskuul dhiganaysa ardayad ah fankay aad u jecleed awgiis. 1970 ayay ka qayb gashay riwaayad lagu dhigay iskuulkii ay dhiganaysay oo lagu magacaabay Hargeysa Technical School. waxay ahayd ardayad ka qaaday iskuulkaasi Hargeysa Technical School heese aad u macaan badan oo ay lahaayeen fanaaniintii waaweynaa xilligaasi sida Xaliima Khaliif, Cumar Magool, Faadima Cabdilaahi Maandeeq iyo kuwa kale. isla markiiba hobaladu waabira ayaa waxa ay arkeen taalantiga iyo waliba awoodda ay leedahay Qadra xagga fanka ah. isla markiiba waa ay qaateen iyadoo da'deeda aad ay u yartahay. 1974 ayaa iyadoo 17 jir ah waxa ay ka qayb gashay riwaayad caan ahayd oo lagu magacaabayay Dab Jacayl Kari Waaye oo uu lahaa abwaankii weynaa Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganay. Qadra heestii koowaad ay qaado waxay ahayd heeskii afka lagama sheegto adigoon jacayl baran loomana ur xumaado. intaa kadib Qadra waxa ay noqotay fanaanad xidig ah oo aad fanka Soomaaliyeed gudihiisa aad loogaga jecel yahay. heestii ugu horeysay oo lamaanaha matalantaale ah waxa ay la qaaday fanaankii weynaa ee Axmed Cali Cigaal heesta Shafka Kaalay Igu Qabo oo iyadoo qayb ka ahayd riwaayadii Dab Jacayl Kari Waayay. heestaasi waxa iska lahaa abwaankii weynaa ee Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganay, laxankana Axmed Cali Cigaal. Qadra macalinkeedii koowaad ee fanka kusoo gacan qabtay waxa uu ahaa fanaankii weynaa ee Saalax Qaasim Naaji. macalinkeedii labaad kadibna saygeeda naqday waxa uu ahaa Axmed Cali Cigaal iyo Saciid Harawo. Qadra inkastoo la yiraahdo jacaylkii ay u qabtay Axmed Cali Cigaal ayay fanka u soo gashay, laakiin sida dhabta ah iyaduna ay sheegto waxay ahayd jacayl ay fanka iyo heesaha Soomaaliyeed u qabto inay fanka u soo gashay. jacaylka ee Axmed uu qabtana uu yimid kadib markii ay fanka soo gashay heesiheedii koowaadna isaga uu la qaaday, laxamadana uu sameeyay, soona gacan qabtay macalinkeeda fanka iyo kii gurigaba uu naqday. Qadra waxa intaa kadib ay noqotay fanaanad aad fanka lagaga jecel yahay iyadoo ka qayb qaadatay riwaayado aad u badan sida Dab Jacayl Kari Waaye, Jeel iyo Jacayl, Ninba Tacabkii Tobi Kaamel iyo kuwa kale aad u badan. Qadra waxa lagu xasuustaa jacaylkii ay u qaaday Axmed Cali Cigaal tiyo keentay in qoyskii Axmed Cali Cigaal ee Maryam Mursal Ciise uu halkaasi ku baaba'o. Qadra waxa kale oo qabay fanaankii weynaa la xamiistihii musishinkii caanka ah ee Xasan Sabriye. Qadra waxay ahayd gabadh aad fanka gudihiisa loogaga jecel yahay. Qadra Dhool oo ku caan baxday joog iyo jamaal ayaa iyadoo codkeeda dahabiga ah ee samawaadka ka imaanaya waxay kaga halacsiin jirtay geeyiga Soomaaliyeed iyadoo dhul kastoo Soomaaliya aad heesaheeda loogaga jecel yahay wiligeedna loogaga jeclaa. Qadra sidee u soo gashay iyadoo 13 jir ah fanka ilaa intii ay ka bixisay waxay ahayd xidig aan dhulka marnaba dhicin, codkeedana uusan isbedelin, xabeebna uusan yeelanin. maxaa ku xasuusataa adigu Qadra Daahir Cige, Qadra Dhool?